arrinta runtii qodobada qaarkood oo ah ka maqnaanshaha wasaaradda ay ka maqan tahay mar walba wax waliba meesha ay ka imaanayaan marka hore waa wasaaradda intaysan maaliyad gaarin ama aysan gaarin arrintan aysan gaarin xafiiska xaqsiinta ama hay-adda howlgabka la leeyahay intaysan gaarin waxay soo maraysaa meelahaasay soo maraysaa marka anigoo aada u sakan garaynaya intii laga hadlay waxaan rabaa arrin yar inaan wax yar meeshaa ira marka ugu horeysa anigu maadaama aan ka soo jeedo ciidan ama military intii badnay noloshayda militariga ama aan booliis ahaa ilaa aan noqday taliskii ugu sareeya 3 sano aan hayay ciidanka booliiska Soomaaliyeed dib badanna aan ka soo maray sidii loo kabi lahaa gaabka dowladnimo oo 20 sano dhexda ka baxay oo ahayd habkan ciidanku ama saraakiishu waa wax isdaba yaalo midba midka uu ku xigo ma jiro meel intii koorso la qabto laga tago dugsiyada ama akademiyada laga jiro mid markuu ka baxo mid kala soo gala saasay isku daba joogaan ilaa ninka ugu sareeya maaragtay kuwaas markay soo baxaan kuwa hore oo saraakiisha saro hore waxay galaan tababaro kala loo diraya cilmiga militarigu kuma eka meel intuu ka baxo meel kuma dhamaan nin waliba tababarkaas waa sii soconaya markaan fiiriyay qormadan mid waa isiriyo markii hore bilowgiisi la bilaabayay ra'yi yani asaaski ma aha guddigan ka hadlima asaaskiisii hore dadka soo qoray waxaad moodaa inay ka maqan tahay meesha luuqadda yani eray bixinta la rabay in waxaani ay u noqoto sal yani backgroundkii halkaasi la aado xoogaa inay ka maqan tahay waa isleeyahay waxaa kaloon arkayaa hadda waa beri anigu aan ahaa taliyaha booliiska yaan dhowr jeer waxaan wada galnay nimankan ajaanibta ah oo dalalka kala duwan ka yimaada yaan shirar badan marar ku galnay meeshaan xalaal la yidhaahdo mar walba aan isku tagno waxaa ka soo horeysa saraakiishii hore miyaad weli haysaan ma la eriyo maxaa meesha maaragtay oo dadajis nin weynba ama ciro leba ma waxay uga baqahayaan aqoontooda iyo uga baqayaan ma waxay uga baqayaan dadkii waxaa jira dalalkan dariskana dalal aan la galnay dagaal la galnay baa jira waxyaabo badan baa arrintaa ka jira markaan fiiriye marka qodobo aan waxay soo kooba arrintayda markaan eego anigoo u mahad celinaya walaalahaygii sida gudoomiye ku-xigeenka koowaad uu soo jeediyey oo si fiican isku dul taagay oo weliba meelaha qaarkood faahfaahin ay u baahan tahay ku noqon maayo keliya waxaan aadayaa qodobka 7 waxaan isleeyahay yani waxaa ka muuqda dabargoyn saraakiishii khubaradii ciidanka Soomaaliya ee ahayd badda iyo cirka iyo dhulka oo hadda ayagoo nina meelayn iska dhooban suuqa in ay meesha ka baxayaan maad muuqata waxaa muuqata kuwa hadda shaqaynaya oo ciidamada maanta ummaddan u hayaan inay sidoo kale meesha ka baxayaan
مدن يا مروي وحنا أوران لها معمر بقى وحنا سلايا هاي رأيي يعني محلنا وكيني وماشي إنه ما كان أجانب تاع حمر كيني بقى وحنا سر هذا بركي أنا جاي الله كل ما دور شيء مركا ورماش أنا حلنا دل كان لوجت للما مصالح قرن كان صومالي هذا حلنا متال كوة شوغا أنا كشقين مايان منا نكي راعان وادو مايا دل كودو من هيا قفكي راعا وعن قبا أرنت سراكيشة سرسرة دمانتو إن لوجو درو سيدا أقول لك أنت أقول تقول سو شيء من 8 سنة لوجو درو وحوي مركان ساسر هذا وحلا عيمنا كوا هاد شوكا قارك عيمنا هيا بدك الدرجة هاد التقانين لوجو ما بيعي صاحبيها وعذر كيس النسوق لقى سوق بتاع عاوج أنا محل حقاس كاس حق الله الراعة هذا يصير لي يلا ولي ما شرته وحمارتي dadkii lagu kala reebi karo ama lagu kala saari karo ma jiraan aqoontiina dalkani waa u baahan yahay waxaan marka halkaas ku biirin lahaa ra'yigaas in saraakiisha sareeyaashana 10 in lagu daro sida hadda ay u soo qoreen min 10 in lagu daro waayo ninka ilaahay ku dhaarshay waxa la ninka shaanlah yaa la 60 sano halgu magacisay waaba kow waa marka uu capacity uu laba tababar qaatay academy ka soo baxay tababar buu aaday mid kale uu qaatay 5 sano 6 sano mar inuu galo ka bacdi maxay tahay waa ninkii saacadii qaranka u baxsan lahaa ninka mijirka وساعد قرنك وبحثنا لها مركا وحن أوران لها كواس dhinacan waxaan oran lahaa saraakiisha hoose waxaan oran lahaa dhammaantood iyadoo la kala saarin min 60 in laga dhigo qofka 60-kaahi maaragtay waxaan isleeyahay dadku 60 jir waa meesha xooggii iyo muxuu ahaa hogaamintii waa meesha ugu fiicneed weeye yacni midaan kaloo askarta sida hadda loo soo sheegay waa u daynaa sababta maxay tahay nin saraakiisha iyo askartu maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin qofna inuu madaxa ka shaqeeyaa la rabaa askartana waxaa la rabaa physically jirkooda iyo xooggiisa in ninkaan ilaa shaqo wuxuu ku jiraa oo iyadu manual ah oo gacan ah oo dhaqaaq ah oo ama dagaal ah ama socod ah ama tababar ah marka korku ka yani wuxuu ka shaqeeyaa laakiin dadkaani waa dadkii maskaxda ahaa weeye waa dadka qaranku maanta hadduu sarkaal yahay ama jaran yahay berri qofkaani waa qofka loo diyaarinayay qarankan oo dhan inuu mas-uul ka noqdo marka waxaan soo jeedin lahaa oo guddiga u soo jeedin lahaa inaan sida sahalka ah ee qoorqabashada ah waa qoorqabasho dalkaani hadda waxaa isu soo gaaray waxaad moodaa in loo bismisiyoonayo ama loo marmarsiyoonayo kuwa hadda dhooban dadkan hadda xelalka noo hayo diyaasbarada ka yimid inayba naceen nimankan ka waaweyn oo meesha joogaa baad moodaa in la bixinayo in la leeyahay ha la bixiyo war meesha ha laga saaro qof meeshaan annaga wax naga ra'yi duwan ma rabno waxaan rabnaa ninkaas ka yimid waddanka hebelow ka yimid oo arki jiray in si oo da-aadda sida walaalkay professor dufle uga sheekeeyey midda oo ahayd da-da ahayd ayagoo dhalinyar bay waxay aadaan shaqo kale iyo markaasay waxay galaan arrimo kala galaan
war meeshaan waa la jabay ummadana waa isla soo jabtay waxaan oran lahaa mudane marwey guddiga waxaan usoo jeedin lahaa arrinta qorqabashada da-da ah meesha in laga saaro